asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaanu ku falanqeyn doonaa goosgooskii labaad ee laga soo bandhigay qeybta 181 ee taxanii gundhigii cusmaan oo shalayta lasoo bandhigay. marka saakidan unbaan fiiriyey, waxaan islahaa xalayta unbaa lasoo dhigay, laakiin waxaa meesha ka muuqata 20 saac ka hor in lasoo dhigayba. waaya kuli hadeer ayaynu aragnay, marka waynu soo falanqeyn doonaa. waxaan ku daawanay unbaa wax ka sheegi doonaa waxaynu ka aragnay. fadlan haddii janaalka cusub tahay daawada subscribe noo saar, hore haddii noola joogto muuqaalkii noo like garay, aad iyo aad ayaad nu mahadsan tahay. intaynaan gudagelin muuqaalka ka horena ku saliya xabiibkeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam. hadeerna si toos ah aynu u gudagalna muuqaalkeena maanta. waan idinkaga mahadcelinaa qaabka aad janaalka subscribe u saaraysaan. haddaba aynu gudagalna muuqaalkeena maanta, waxaana markaasi goosgooska uu ku bilaabmaya hadalladan u horumarsiinaynaa. Alaadiin oo oynaya ayaa arkaynaa tiiraayadii baala ayaa dadkoo dhan u taalo markaasi, iyagoo mooda dhammaantooda in baala ay geeriyootay. wuxuuna Alaadiin leeyahay markaasi, aabba sideen ku xamilaynaa markaasi xanuunkana soo wajahay annaga hadeer ina haysto oo ah markaasi inay hooyadeeda geeriyootay ayuu leeyahay. marka sidaas darteeda laan walbayto aynu cogsano way sii jabaysaa ayuu leeyahay, taasoo ka dhigan markaasi inuu leeyahay cunugaan markaasi garabkii ugu weynaa aynu haysanay ayaa markaasi naga baaba'ay oo aynu markaasi weyne ayuu leeyahay. intaa kabacdina cusmaan wuxuu leeyahay markaasi waa inaad qadiyadaada ku dhegtaa iyo jaceylkaaga. ujeedkeena marka horeba wuxuu ahaa inaan ilaahay dartiisa u dagaalano, taas ayaana wax walba ka weyn. insha allah hadduu ilaahay idmayna markaasi hooyadaada waynu u aaraynaa, weliba si wada jira. markaa sidaas ayuuna ku sasabayay wiilkiisa. intaa kabacdi cusmaan wuxuu qorsheynayaa inuu weerar ku qaado markaasi qabiilkiisii ayuu weerarayaa. macnaha hadda qabiilkiisa dee cadow waa gacanta ugu jiro mogta. marka sidaas darteeda wuxuu qorsheynayaa halkaasi inuu markaasi cusmaan furto, isagoo dhahayaanu arkayna dhammaantooda waa inay dhintaan. weerar ayuuna ku qaadayaa. markaas qabiilka ilbaay ayaa ku sugnaay, ninkii mangooliska ahaa ee xukumayay nologaana waa uu ka maqnaa xaaladaas. intaa kadib waxaa dhacayso in ninkaani weerar uu kusoo qaado qabiilkiisa, isla mar ahaantaasina aynu arkayno markii ugu horreysay cusmaan iyo sidoo kaleetaba ilbaay gacanta isku dhigaan oo ay isdagaalaan. muuqaal xiisale ayuu noqon doonaa, rajina markaasi xalqada soo socota loo daawan doono. waa markii ugu horreysay cusmaan iyo ilbaay faraha isla galaan ayay noqon doontaa. muuqaal cajiib wey, iyadoo xitaa aynu aragnay markaasi ilbaay oo ciqaabaya markaasi dadka qabiilka ku sugnaa, maadaama baala ay ku caawiyeen markaasi xalqadii lasoo dhaafay inay qabiilka ka baxsato, isagoona u sheegay markaasi inuu ciqaabi doono, weliba ciqaabtan ugu daran. dadkaana way ka badbadiyeen ninkaani isagoo garaacayaanu arkayna oo cadaab marsiinayo. sidoo kaleetana gabadhii yareeda Caaisha la dhahayna meesha ayay taagan tahay, si geesinimo ku dheehan tahay ayayna markaasi u eegaysa markaasi ninkaani waxa uu sameynayo. wax foolxumo badan ayuu meesha ku hayaa. gabadha cabeedna ninkii dilay isagii waaye. markii ilbaay dadka qabiilka dhibaatada uu marsiinayo oo uu garaacayo ehelkaasna waa laga gudi doonaa markaasi waxyaabaha uu ku sameeyay cusmaanana ka jari doono. halka ninkii lagu magacaabay ologaana aynu arkayno markaasi isagoo ku hadaaqaya hadalla ay ka mid ahayeen ciidamadeenu waa kuwa aad iyo aad u tiro badan, xitaa kuwa qabiilka jooga maa markaasi kuwa yar ayuu leeyahay. marka cusmaan ma soo haweysan karo, ayuu ku fakirayaa markaasi furashada qabiilkaasi inuu gacanta mar labaad uu ku dhigo, maadaama sidii uu gacanta ugu dhigay ay fududeed markaasi suquud. tani waa ka taxadari doona ayuu leeyahay ninka lagu magacaabo markaasi ologaan. bilcagsi isaga ayaaba wadada markaasi qorshe looga dhigayaa. cusmaanana markaasi waxaynu arkaynaa ciidamadii mangooliskii faraha isla galeen, isagoona burburinaya ayaanu arkaynaa. laakiin ciidanka mangooliska kuwa badan waaya, cusmaanna kuma guuleysanayo markaasi inuu ologaanka ka siiyo, laakiin waa uu jebin doonaa ciidankii ologaan. halkaasna waxay kala laaban doonaa markaasi guuldara ayay kala laaban doonaa markaasi ciidanka mangooliska, waxayna diiradda saari doonaan qaabkii markaasi ay ku ilaalin lahaayeen qabiilkaasi si markaasi cusmaan uu gacanta ugu dhigo, maadaama ay arkayaan ishaaro tilmaamaysa inuu cusmaan weerar ku yahay markaasi qabiilkiisa. halka cusmaanna aynu arkaynay isagoo dhahaya hadalla ay ka mid ahayeen, marnaba lagama yaabo inaynu dagaalkani ka joogsanay, xitaa cadowgeyna haddii 100 mar ay nagu soo dul laalaabmaan ama kumanaan jeer xitaa ay markaasi nagu soo dul laalaabmaan oo nagu laba jibaarmaan ayuu ka wadaa. yeeli meen ayuu leeyahay markaasi inaynu marnaba istaagno, waynu dagaalamaynaa intaynu ka shahiidayno. dagaalkanina waa mid soconaya oo marnaba aanan joogsanaynin ilaa aynu ka soo ceeshanayno markaasi qabiilkeena. sidaasina halkaasi aynugu aasi doonno markaasi meydka marwabaala qabiilka dhexdiisa. carada qabiilkeena ayaana lagu aasaya ayuu leeyahay, meel kale looma sido. marka sidaas darteed cusmaan waxa uu go-aan ku qaatay baala inuu halkaas ku aaso, laakiin taasi waxaa ka horeysa ayuu leeyahay inaan xoreeyo qabiilkayga. dhanka kale waxaa arkaynaa ilbaay oo la hadlaya markaasi xaaskiisii naagtii lagu magacaabayay Biguum. wuxuuna u sheegayaa markaasi cusmaan inuu markiisii horeetaba ahaa dab horaya, adiguna dabkaas ayaad nagu sii dul shiday ayuu leeyahay. wuxuu kala jeedaa markaasi
markiis hore ayuu ninkaas cadaawad inoo qabay oo rabo markaasi inuuna baabi'iyo adna xaaskiisa sii disha Soomaa dabka ayaad nagu sii horisay ayuu leeyahay Biguumi iyadana waxay leedahay waxaan doonayaa dabkaasi inuu zaad u sii hor xitaa ilaa uu dambas oo ka noqonayo ma joogsanay iyada Cusmaan dartiisa wax walba u dabagedina aniga waxaan reebanay malaha dhanka kale ninkii Ologaan ahaa asagana wuxuu isu diyaarinayaa markaasi inuu la dagaalamo Cusmaan qabiilkiisii ayuuna yimid isla warahaantaasna halkaasi ayuu shirqool ugu dhigay wuxuuna doonayaa halkaasi inuu ku baabi'iyo ninkii Cusmaan ahaa Cusmaan qabiilkiisa markuu yimaado halkaasi weerar ku soo qaado dagaalkii inta uu socdo isla markaasi waad ka guuleysatay cadawgaaga Ilbaayna markaasi waad ka guuleysatay qabiilkana gacantaad ku dhigtay marqora ninkii lagu magacaabay Ologaan ayaa ku soo baxay qorshe ayuuna halkaasi ugu sii diyaariyay Cusmaan ciidamadiisa oo ayal gelinaya waxaan arkaynaa markaasi ninkii lagu magacaabay Ologaan isagoo dhahay markaasi qabiilkaaga qabriga uu noqonaya Cusmaano ciidamadaadii ehelkaagana aniga la haystayaal ii noqonayaan ballan way taayka bacda Cusmaan isagoo qeylinaya inuu arkaynaa dhahay markaasi nabadoon iyo dagaalyahanadiina shuhadadeeni dartooda u dagaalama ayuu leeyahay iyo xorriyadeena darteeda iyo sidoo kale magaca Eebaha xaqa ah dartiisa weerar ku qaada ayuu leeyahay cadawga isagoona markaasi Cusmaan ciidankiisa sidaas ku dhiirigelinaya ayaanu arkaynaa marka goosgooska sidaas ayuu ku soo idlaanaya xitaa goosgooska waxa ku daawanayna Biguum oo falaar ku dhacday oo dhimanaysa su'aashaas isweydiinta mudan sidaas oo Biguum ku dhimamaysa Biguum dhimashadeeda baada ay sugaysaa iyadana ka sii doonto markay ku soo laabato way laana waxay u geysatay ayaanu garanaynaa marka Biguum qof hore iska dhimanaya ma moogtay isaga oo wariiriga hada lagu istaagata dhimeen marka Biguum markaas dadka falaar ku dhacday maahan mid ay u dhiman doonto sidaas darteedana baala ay sugan doontaa geerideeda halkaas ayaynu ku bixi doontaa iyada ama ninkii lagu magacaabay Saaruuja waxaynu arkaynay falaar loo wada mudana Cusmaan isagoo isku dhigay isaga miyuu dhimanaya taas ilaa ninka lama shaacin inuu taxanaa ka baxay qofka markii taxanaa inuu ka baxay la shaaciyo kala sabab uu noqon kartaa markaas inuu saas ku dhinto laakiin uma maleynay markaas ninkan inuu saas ku bixi doono maadaama xitaa laga yaabo ambuurku wata markaas inuu ka saaciidi doono markaas inuu ninkan wax dhaawac gudaha uusan u gaarin iyadoo xalqadii hore taa aynu ogeyn markaas suuguud markii caalanka uu meesha u saarayay ninkani in falaara ay ku dhaceen sidaas darteedna uu sii noolaa marka tan waxaan rajeynaa insha Allah haduu Ilaahay idmaayo inuu ka bogsan doono oo ka sii dhaqaajin doono mana noqon doonto markaas mid oo filimka uga bixi doono ninka lagu magacaabo Saaruuja ama ninka Ilbaay lagu magacaabo laftirkiisa waxaa laga yaabaa qaatumada markii u dhawaato uu ka laga siin rabo inuu soo kala dhex galo markaas ninkii Ologaan ahaa sidaasna Ologaan uu ku badbaadiyay markaas ninka lagu magacaabo Ilbaayna dhimashadiisa markaas goordhow bay ahaan doontaa isagii Ologaan buu cabsanaa markaas Ologaan inuu horbixi doono la hordili doono ka yaabi doono aniga macquul macnaha ana Ilbaay doorkiisa xoogaa xiisa ayuu leeyahay bariida maadaama xoogaa hoos loo dhigay markii ninkan uu yimaaday waliba Ologaan lagu magacaabo isagana doorkiisa awood waa uu yeelan doona marka Ologaan la dilay kadib u maleynaya inuu isaga markaas ka bacdi la dili doono u badanta qaab noocaas ku qurux badnaa laakiin Ologaan hortii hadii la dilo wax jirmaan muuqaalkeena maanta intaas ku soo koobaya kana raal noqdo intaan ka soo daayay uma santiin intaan ku kulmay doono muuqaalkiisa waxa idin kaga tagayaa salaanta islaamka salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh